ilkaygii doofeen dushisheeyaa tagayo waan ku dhowrayaayo weli kaa dhulsibayaaye dhafagacaala soo noqo. kulantii wacan oo wanaagsan akhyaarta inagu xiran idilkiinba meel kastoo joogtaan xilli kastay waqti kastay idin tahay shukri sharaf official channel ayaad nagala socotaan alaaba hadaayo kalan idinkaga soo gudbino muuqaalan isdhihi karno akhyaarta idinku xiro waa ay ka heli doonaan waa tahay waa mar kale iyo muuqaal cusub fadlan haddaad nagu cusub tahay kusoo dhawow janaalkeena isla markaana waxaanu kaa codsanaynaa mar kale inaad nagu caawisiin sabskaraabta haddaad nagu cusub tahay haddii aad hore inoola joogtana dhanka laygta iyo sheertu waa xaggaaga mahadsanid mar kale. waa tahay warbixintan waxaanu kaga hadlaynaa gabadha tani la la-yahay 14 Julaay ee layiraahdo Owami. haddaba cc camera muuqaal cadeynaya maqnaanshaheeda iyo waliba halka ijaani cirib dhigtay iyo goobtii ugu dambeysay ayaanu halkan idinkugu soo qadimayaa. waa tahay haddaba gabadha tani waxaa la yiraahdaa Owami waxay ahayd ardayad isla markaana diyaarinaysa nursery-ga. Owami oo Blaiska ayaa soo daayay CCTV camera kadib maqnaanshaheedii ardayda nursery-ga ah laguna magacaabo Owami Davis iyadoo la la'aatan iyo habeenkii ugu dambeysay in nolol lagu arko oo ahayd 4 Julaay. maqnaanshaha ardayda tani ee Owami oo lagu arkay markii ugu wardambeysay Grace of Essex ay deganaayeen qoyskeeda Derby Road wadada ee galbeedka Croydon ilaa 7 bisha ayaa iyaduna la leeyahay halkaasi ayaa lagu arkay. maqnaanshaha gabadha tani waxaa loo xirxiray in ku dhow 3 ruux amaba 3 nin isla markaana ay da'adoodu la shaaciyay. qofka koowaad waxaa la sheegay inay da'diisu tahay 23 jir halka qofka labaadna da'diisu la sheegay inuu yahay qof jira 27 halka qofka saddexaadna uu yahay 32 jir ama 32 jir iyadoo looga shakisan yahay maqnaanshaha gabadhan amaba dilkeeda. sidaa waxaa xaqiijiyay laamaha ammaanka ee wadankan. xafiiskooda waxay sii daayeen muuqaal cadeynayay markii ugu wardambeysay goobtii ay maraysay nolol lagu arko. haddaba iyadoo la arkayay Owami oo dukaameysanaysa isla markaana socoto amaba dhinaceeda hareerteedana uu socday nin ka ag dhawaa wadada Derby Road. Owami hooyadeed oo lagu magacaabo Nicole ayaa sheegtay inay jeclaan lahayd inay soo noqoto gabadheeda gurigooda amaba hoygooda aynan jirin wax dhibaato ah amaba dhib ah ay la kulmi doonto oo la xiriira maqnaanshaheeda. hooyadan oo warkeeda sii wadata waxa ay tiri ama intaasi ku dartay inay leedahay qoys ballaaran iyo saaxiibo jecel Owami ahmiyad siinayo. iyagoo dhanna waxay rabaan inay arkaan Owami oo bad qabta amaba soo noqoto isla markaana ay nolol ku arkaan. hooyadani waxay intaasi ku dartay haddaad aragto fariinteyda waxaanu rajeynayaa inaad aaminto oo kaliya amaba kusoo noqotid hoygaada. Owami fadlan fariin u reeb hadday xitaa ugu yaraan aad bad qabto. waxay leedahay Owami haddii aad bad qabto fadlan xitaa noo reeb fariin. waxaanu ku jirnaa ayay hooyada tani intaasi ku dartay xaalad adag oo dhibtoonayaan darteed maqnaanshaheeda. qof kastoo ku jecel Owami hadduu jiro ciddii aragta amaba ka warqabta fadlan la wadaag Blaiska ayaa warbixinta intaasi lagu diray. hooyada oo u warantay wargeys. haddaba maalin kastoo waxaanu sugnaa inaan war wanaagsan oo rajo ah helno amaba aanu helno ka warqabkaaga waxaanu sugaynaa soo noqoshadaada. wax kale oo aan sameyna ma lahan ayay intaasi ku dartay hooyada tani. Blaiska ayaa xaqiijiyay in darawal sitay van cad isla markaana laga dhex arkayo sawirkani uu goobta marayay. fadlan hadday jiraan xilligaasi hadduu hayo warbixin iyo waliba arrin la xiriirta maqnaanshaha gabadhani waxaa la codsanayaa inay la soo xiriiraan. haddaba amaba haddii aad aragtay
gabadha tani la baadigoobayo nolol iyo geeri lagu la-yahay tan iyo horaantii bishii Julaay ee dhaaftay. Fadlan la xiriir laamaha ammaanka si looga warhelo. Haddaba waxaa bannaanka la keenay su'aalo iyo muuqaallo markaasi loogu gurmanayo in la helo raq iyo ruux halka ay dhigtay gabadhan la yiraahdo Uwami ay ahayd ardayad isla markaana baranaysay caafimaad. Baaritaano ayaa socdo iyo howlo kormeer oo lagu xaqiijinayo inay isqarinayso iyo in kale. Haddaba arrintan oo CCTV camera laga soo daayay warbixintan ayaan ahayd warbixin aad loogu baahiyay baraha bulshada isla markaana ka sheekeynaysa maqnaanshaha gabadhan ee reerkeedu ay ka maqan tahay waqtiga intaasi la eg. Haddaba dhalinyaro badan ayaa mararka qaar waalidiinta qaar sida Uwami oo kale waalidiintoodu ka baxsada isla markaana doona amaba raadsada hal ay isku qariyaan halka kuwa kalena ay la kulmaan dhibaatooyin iyo shilal ay naftooda ku waayaan. Maqnaanshahan ay samaysay Uwami ayaa warka markaad eegtid iyo warbixinta sida loo dhigay waxaad isdhihi karaysaa in ay waalidkeed ka dhuumanayso ama ka baxsanayso, halka eedeysanayaasha saddexdii ah ee lasoo xirxiray ee looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin maqnaanshaheeda gabadhan. Arday fara badan ama dhalinyaro fara badan ayaa sameeya mararka qaar markay waalidiintu kala kulmaan cadaadis iyagoo markaasi isku qariya guryo kale iyo magaalooyin kale iyagoo waalidka markaasi ka baxsanaya. Culeysyo fara badan ayay mararka qaar dareemaan taasoo ay maciin badaan inay waalidka ka dhuuntaan si ay u helaan xorriyad u gaar ah ee ku naaloodaan. Dhalinyaradu waxaa la yiraahdaa intay geedka booda ayay tala ka boodaa. Waa dhibaatooyin markaasi mararka qaar dhaca ama dhalinyartu soo food saarto iyagoo markaasi xal ka raadiya inay waalidku iska qariyaan, halka kuwa kale qaarkoodna ay markaasi waalidku dhibaatooyin ay ka qarinayaan markaasi ay galaaftaan oo ayaba dhacdo in sidaasi lagu waayo amaba la dilo. Si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxay tahay maqnaanshaha gabadhani inay tahay in ku dhow muddo bilah marka loo eego taariikhda ay markaasi la waayay Uwami ardayad baranaysay nersariga. Waa tahay Shukri Sharaf Official ayaad kala socoteen warbixintan. Fadlan mar kale waxaan idinka codsanayaa inaad la wadaagto muuqaalkan asxaabta. Dib dambe intaan ugu kulmi doono waa anigoo Shukri Xasan oo idin leh isma dhaafno. waan ku dhowrayayo weli ka dhulsibayaay dhaqsagacaala soo noqo irkaygii dhoofe dul shisheeyaa tagayo waan ku dhowrayayo